وعيدة عيدة عيدة عشيري ترس ونقبة عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن كعيدة وعيدة عيدة عيدة عشيري ترس ونقبة عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن كعيدة عيدا كلنتي وعنا وناكسن إدلهانتين بامير والبوء العالم كجوكا هلكاد نقل السعودان وهلقن تيفي حسيا شيء بسولو هذا برنامج كيني سلامها هي عيد السودان اللي بلن قاضي ومالينتي عيدان اللي كلا صوتي من دون استوديو هي قالوا كلنا مقالة عاصمة الأوسط إيدا في النرويج هذا برنامج كان وحاسيب الجري بوسو هذه أنا وعاصم الشيخ أحمد هي ولي عبد الناصر بالفاسد وكان ذلك في السودان هاجر لعنات أي وحا إنه ده هي si wada jira oo loo dhan yahay Shaafici Bidiin wariyaha iyaga magaalada Trenham oo isagu booqashooyin maalmaha ku joogay iyo waliba sidoo kalena ninka weyn way moge marka Cabdinaasir ayaan siinay Cabdinaasir okay mahadsanid Samsam Sheekh Ahmed daawadayaal iyo dhageystayaal iyo halkan TV aad iyo aad ayaan mahadsantihiin daawashada waxaan igu talagalnay barnaamij gaar oo barnaamijka ciida taaniyadaha islaamaha oo eheladiina asxaabtiina iyo qaraabadiina halkan ka salaami doontaan barnaamijka waxaan ku furin doonaa heesta ciida عيدة عشيري ترس ونقبة عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن كعيدة وعيدة عيدة عيدة عشيري ترس ونقبة عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن كعيدة عيد مبارك عيد ونكسن كعيدة وعيدة عيدة عيدة عشيري ترس ونقبة عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن كعيدة عمرهم دنيا عيد كستو مسلمة وعشوينكي فرحتي عيار عدنوهي عمهم دنيا عيد كستو مسلمة وعشوينكي فرحتي عيار عدنوهي وعيدي عيدة عيدة عشيري ترس ونقبة عيد العافية عيد مبارك عيد ونكسن كعيدة وحقاقي عددكي معنا waxaad wada dhageysanayseen Asma Loof iyo waliba markaasi mursal sidoo kale asxaabteena dhageysanaysaan meel kastoo caalamka ku jirtaan aan idhaahdee wuxuu ahaa nimcaan iyo waliba Asma Loof halkaad kala socoteen waa halgan TV barnaamijku waa barnaamijkii loo dhammaanse yeeshee waa barnaamijkii islaamaha ciida oo aan si wada jir u daadinay aniga iyo waliba mar kale aan idinku celiyay عبد الناصر جوقفا عبد الناصر waxaan filayaa ciidu aniga iyo adiga inay maanta naga bilaabanayso danka salaamiye yaa jeclaan leedahay ka salaanto okay waa mahadsantahay Sam Sheekh Ahmed marka ugu horeysa waxaan tahniyad u diraa
ummadda muslimiinta khaasatan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan kaloo u diraa familkayga oo dhammaan reer Maxamuud Xaaji Axmed Wajufa oo meel walba dacalada adduunka ay ka joogaan asxaabtayda ehelkayga iyo dhammaan tiimka Halgan TV iyo dhammaan reer Oslo iyo dhammaan inta magacayga muuqayga taqaana markaan kugu soo laabto adiga yaa salaamnaysaa Samsam Sheekh aad mahadsan tahay waan filayaa dhammaanba inaynu marka hore si wada jir u wada salaami doono ummadda muslimka ee ku dhaqan daafaha caalamka ee ay maanta ciida u tahay gaar ahaana dadka Soomaaliyeed ee dunida dacaladeeda jooga hase yeeshee si gaar ah waxaan ku salaamayaa dhammaanba ummadda muslimiinta ee Soomaaliyeed sidoo kale waxaan ka madnayn ehelada qaraabada asxaabta oo isku duuban inaan salaamayo dabcan waxaan ugu hormarinayaa gabadheeda Faadumo ee curda ah waxaan doonayaa inaan ku xijiyo Hani oo iyaduna ugu yar dabcan waxaan ka madnayn dadka Soomaaliyeed ee ehel qaraabo asxaab iyo dhammaanba waan salaamayaa daawadayaal dhegaystayaal waxaan naga daawanaysaan TV-ga Halgan TV barnaamijka ayaan bilaaban doonaa waa barnaamijka tahniidaha salaamaha ciida oo inagu talagashay TV-ga Halgan waad na soo wici kartaan telefoonada shaashada ku yaala Skype-ka iyo Viber-kaba dabcan waxay naga soo wici karaan oo markaasi ay nagala socon karaan Facebook-ka Viber-ka iyo sidaad u sheegtayba Skype-ka hase yeeshee mar kale ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan daafaha caalamka waxaynu leenahay kulli caam wa antum bikhayr ciid wanaagsan meel kastoo joogtaana marka labaad markaan kugu soo laabto sidee loogu ciidiyay magaalada Oslo caasimadda dalka Norway maanta jaalida Soomaalida Cabdinaasir runtii waxay ahayd maanta ciidu mid aad u weyn runtii hoolkii weynaa ee aad arkaysay culimada xaafadda aan idhaahday Helsinki oo markaa aan aad runtii ula yaabay weynaantiisa garoonkii maaragtay lagu ciyaarayay runtii rag iyo dumar badan oo Soomaaliyeed ayaa ka soo qayb galay dhageystayaashana waxaan filayaa inay markaa daawan doonaan barnaamijkii aynu ka soo sameynay runtii dadku aad bay u faraxsanaayeen caruur iyo ciroolaba waa la wada ciidayay runtii waxaad u maleynaysay maalin qaas inay ahayd oo Oslo waxaad u maleynaysay xitaa gobolladii oo dhan baa laga yimiday wadarkiisii ninkii amreysay injineerka ahaa iyo meeshuu ka yimiday sidoo kale gobolada dalka laga yimid oo Norway ummadda Soomaalida way iskugu timid hoolkaas garoonka ayuu ahaa hool barxad weyn oo Soomaalida dhan iskugu yimaadeen gobolada dhan ayaa laga yimid magaalada Oslo caasimadda dalka Norway dadka Soomaalidu aad ay ugu riyaaqeen ciida hambaliyada iyo salaamaha ay dirayeen barnaamij dhan ayaan ka sameynay waan idin soo dayn doonaa insha Allah dabcan Cabdinaasir oo ku darso wadamada Yurub aan idhaahday qurbaha waxaa la galay xilliyadii fasaxa dad badan ayaa sidoo kale wadanka ay ku jooga xilli fasax ay ciidan ku soo aaday run ahaantii dad badan oo wadanka dalxiis u yimid ayaa kamid ahaa dadkii ciidayay sidaa ayaa markaa kalifi kartay inay macnaha dadkii aad u tiro bataano waan faraxsanay runtii haddaan nahay reer Oslo maanta aad iyo aad daawadayaal meesha naga daawanaysaan waa TV-ga Halgan waa barnaamijka aan igu talagalno ah tahniidaha iyo salaamaha oo fursad qaali aan siin doono eheladiina asxaabtiina iyo qaraabadiina aan salaamaysaan barnaamijka waa na soo wici kartaan telefoonada shaashada ku yaala Facebook-ka Skype-ka Viber-ka وتهي وسيدو عبد الناصر الشيقي ونرسو حريرسان إهلدينا قرابديني أصحابتيني إنت أجعشهين أياد مركاسي سلامي دونتان حسي شيء عدكم عن نجيب ألفا أيانو كوة نسانينا وحمد الله عيد ونكسر Worldwide exclusive. igu qabo ladan tajaclay lagi barka ku taalay fadlan share gare oo subscribe gare wahayadu
لبتيب وطبو الله أنت شعلاي لقي بركات كنت الله كنت الله سولود عاشا وحروليتي الذي ما يشيفكي ثوي هوتي سولود اللهم صرني إلى اللودي عاشرة وحنوليتي الذي ما يجيبكي الثواي أوتي والله زرتا راسم الله ناريو اللي بيني وقرني اللي حافي ماضي waa hagaag intaasi aynu uga gudubno codkii macaana ee markaasi najiib alfa ayaad wada dhegaysanayseen fari kama qodno kaalimaha suugaanta een maanta idiin hayno dhanka farsamada waxaa si wada jira maanta inoo fadhiya maya mooga iyo weliba shaafici muxidiin oo isagu dharaarahanba ku joogay fasax halkan stuudiyaha oo sidaan filaya barnaamijyadii u dambeeyeyba si toosa halkan idinkaga soo tabinayay meel kastood caalamka ka joogtaan aad baad u mahadsantihiin fadlan sheer gareeya oo subscribe gareeya waxaan doonayaa markan war cabdi naasir والله هذه هذا مو فرح سنة ما شاء الله برامج كعيدة ولا بدينا ندهين إنه ودتك داورياشون أن سود وين إن أيجنا أي كفائدستان فرصة قالية إذن سي تي في كا هلكن تي في سيادو سلامتان أهل كينا أصحاب كينا قرابتنا إيوه عدة والباهر كان كسلام يسيان برامج كان وبرامج آدو قيمة بدن وعن فرصة قالية أن يوسين دونا إن شاء الله آدي هذا يدتك الصومالي ده أصله كونوا آدي هذا يفرح صناعين يسكن تهنيدين معناته عيدة هذه كان همبلي يعني لنا أنا هاي عيدة درتد waxaan igu talagalnay barnaamijkan qiimaha leh samsam aad baad u mahadsantahay runtii dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan daafaha caalamka runtii TV-gu wuxuu u hayaa barnaamijyo kala duwan sidaad ogeydba bishii barakeysneed markaa maanta soo gabagabeynay runtii barnaamijyo badan ayaa ka baxay oo ay haba ugu weynaado barnaamijka markaasi رمضان كريم ورنتي دد وديارسني أي مركا دادهينين وحبضن أي فيليا ددك سوماليات إني كفائدين ولنا برنامج شدا كلا دوين تي في جو وديارو ليه إنه وتبيو مركا بالشدا أنا صار نقد برنامج كان إنه كوجد الجنو وحنا قلت لك اللي سدا وشيك تيويان وحنا قلت لك اللي إن أي هلا قرابة أصحابتي يولي بقى أي سلامان isuguna gudbiyaan salaamaha ciida oo kaliya waxna uu ka duwan yahay barnaamijkii hore ee tijaabi nasiibkaaga wuxuu kaga duwan yahay labaduba waa salaamo laakiin kani waa ciidii barakeysnayd intaasoo maalmood bay dadku soo manaayeen oo ay sugayeen maalintan oo kale waana maalin farxad la runtii hadu weyn maanta dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Oslo aad iyo aad ay u faraxsaneen waxa ka soo qayb galay dad kale oo ka yimid wadamo kale sida la socotid barxadaasi ka soo qayb galeen dadkaasi oo ka yimid Canada oo arkaysa Sheekh Saciid Raage oo aad iyo aad aan ku faraxsanahay inuu lagu soo qayb galo maanta dabaaldega ciida dadka Soomaalida ee Oslo dad badan aad iyo aad ay ugu faraxsanaayeen barnaamijyo ayaan ka sameynay sida la socotid oo ku saabsan ciida salaamaha iyo taaniida dadka Soomaalida waa soo dhaweynayna in barnaamij waxyaabo badan ayaa soo socda sida la socotaan soonka darteed barnaamijyo badan aan kinay barnaamijyo badan way soo socdaan oo aan ugu talagalnay dadka Soomaalida oo barnaamij bacda ciid runtii ku darso Cabdi Naasir oo maanta waxaan aad uga helay sidii culimadu maamulka ay u qabteen runtii waxaan arkayay in caruurta xitaa nafahanteeda mikrofoonka lagaga dardaarmay waalidiintu caruurtooda xifdiyaan sidoo kale waxyaabihii dhumay
halkaa laga naadinayay oo looga sheegayay qofkii baadidiisii ka luntay waxaa kale oo jirtay in caruur markaa meesha ku dhuntay ama halkaa waalidka kaga fakaday in maaragtay lalahaa caruurtiinii annaga haynaha ka walwalina runtii maamulka guud ahaan markaad eegta aad buu u wanaagsanaa waanan u riyaaqay runtii intaa waxaan ku daray ma jirin wax khilaaf ah oo dadka mararka qaar waxaa la iidihii hore waxaa la arki jiray khilaaf maalmo kala duwan laakiin dadka soomaalida oslo ku nool dalka Norway aad iyo aad ay u ciideen isku mid ay ahayn waxaan u mahad celinaynaa maamulka masaajidka oo soo qaban qaabiyay barnaamijkan ciida runtii aad baan ugu faraxsanaa nafahanteyda waxaan markii hore ogaa in muslimiin badan baa waddankan inagula nool ay ka mid yihiin bakistaantu runtii maalintan way iclaamiyeen oo maalinta arbacada inay dukadaan salaada ciida way kasii go'neyd laakiin inagu mar walbaba sacuudiga ayaynu markaa ka sugnaa oo waxaan filaynayba inay shalay oo kale noqon doonto ciidu waa mar kale iyo farxad in dadkii maaragtay soomaaliyeed iyo maaragtay bakistaantii muslimiintii kale waddanka nagula nooleed ay maalin qora wada ciidaan taasina waxay badinaysay tirada dadkii ciidayay maxaa yeelay hal maalin ayaynu wada ciidnay maasha allah waa farxad weyn oo farxad aad iyo aad hal maalin la ciiday wax khilaaf ma jirin sidaa hore ugu barateenba dadka soomaaliduna hal meel iskugu yimaadeen xafladaasi ay isku mahad celinayeen aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan arko jaaliyadda soomaaliyeed oo ka timid gebi ahaan gobolada dalka Norway eena kasoo qayb galeen xafladaas barnaamijyadaasna waan soo dayn doonaa طبعا برنامجك عيدا ميموغي يولي بدنك فرسمدا ayaynu ka wada sugaynaa goortii uu diyaariyo hase yeeshee barnaamijka ciida oo aad baan idinku soo diyaarinay sidii Oslo looga ciiday waana arki doontaan barnaamijyada dambe ee soo socda ayaad markaa ka daawan doontaan inkastoonaan waqtigu aan idin ballan qaadi doonin ama aan idin ballan qaadaynin hase yeeshee xilliyada soo socda ayaad barnaamijka daawan doontaan sidoo kale waxaan jecelahay halgan TV maanta ma kala harin runtii shaafici oo maanta khamiiskii uu soo qaatay iyo cimaamadii maaragtay studio nala jooga aan weli maaragtay salaadii kadib aan khamiiskiisii bedelin waxaan ku yidhi shaaficiyow halkan hees baa laga shidayaa halkaa fadhi intaad khamiiskaaga soo bedelaysa laakiin xaq buu leeyahay inuu salaamo soo maaha dabcan waa sidoo kale shaaficiyaad jeclaan idina halka salaanto ma halkanaa soo fadhiisanaysaa mise halkaagaasad ka salaamaysaa kolay wad islaamo badanto anaa kuoga dhanka haddaad salaadooda ku dhamaatay waagaag aad baad u mahadsan tahay samsam waan ku salaamayaa waxaan salaamayaa adiga iyo juqufa ayaan idinka bilaabaya cabdinaasir juqufa sidaas oo kale waxa aan salaamayaa dhammaan daawadayaasha inagu xiran inta iminkana daawanaysa inta beri ina daawan doonta inta saacadaha soo socda ina daawan doonta iyo inta daqiiqadaha soo socda inagu soo biiri doonta dhammaantoodba waan salaamayaa cidka ma tegayo isla sidaas oo kale waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed oo dhan meel kasta ee ay joogaan waan salaamayaa waxaana leeyahay dhammaantood ciid wanaagsan taqabbal allahu minna ومنكم وإياكم وأعمال الصالحين وجزاك الله خير الجزاء أيان ليا سيدو كلو حان سلاميها صاحبكي مي موجي ما أنت في الصمدة أن قوة قرنا هاي طبعا الميسك هوستيسا أيان كسو هدني دونا عمك ما أنت إن بدن وحوا ميسك هوستيسا وان كسو هذا اللي مركا سيدا دراد إذا كان الله ماشي كمرنا لبدينا مركا داودال بدن وإنكي ويدير مركا سيدا دراد عيد ونكاميس هوستيسا قال ونكاميس هوستيسا قال لكن ونكانا كسوبي وقوس يومين وقوس على وضعنا وليبا مركا أنا قال وكسوبي دونا هدي أنا صلى الله تسلمت كانوا في ملكا وحان أنت كسلامية هويدي حبيب الراي حسن سيدو كانوا وحان سلامية إددي فاضل محمد سلاس وكل وحن سلامية ولا له قالية سيد علي أو إمي كان دتك إن داونية سلاس وكل وحن سلامية فهد وحن سلامية إن ولا شيء شغل وكونه مريكي وحن سلامية ولا شيء مهني وكونه ودك نروي ولا شيء شريف وكونه سلوك نروي سيدو كل وحن سلامية ويلك أبتيجا نوهاي وإسكو مجعنا عن هاي شافعي عنشر علي
isla sidaas oo kale waxaan duca u dirayaa walaashay iyo weyn aasiya oo hooyadii ahayd oo dhimatay alla raxma ayaan leeyahay ducada iyo salaanta in la isdaba dhiga way wanaagsan tahay inta kaa dhimatana waad u ducayn kartaa mar haddii aad tagtay inta aad salaamayso iyana waa sii gashan ma tirin kara dabcan femil baaxad weynaan nahay laakiin salaanta femilka guud ahaan intii aan salaamay iyo intii aanan salaaminba waxaan jeclahay suubisana isaga dhigo halka qof oon salaamay 4 kale aan ku lamaaneeyo si salaanta ay u gaarto marka xisaabta markaas way iskeeni doontaa inta aan salaamin iyo isla sidaas oo kale daawadayaasha iyo asxaabta iyana aad baan u salaamayaa ciid mubaarak ayaan leeyahay barnaamijka kaliya kuma soo koobi karo dabcan haddii aan dhaho asxaabteydaan halkaan ka wada salaamayaa laakiin waxaan jeclahay berri iyo berri dambe iyo caawa iyo waqti badan oo ii haray aawadeed inaan u dhigto mar kale haddii aan ku soo celiyo adiga iyo joqofaa oo salaanta aan ka bilaabay iminkana waxaan jeclahay inaan ku soo afjaro ciid wanaagsan labadiinaba waad mahadsan tahay ciid wanaagsan ayaan ku leenahay laakiin se waxaan jeclaan lahaa shaaficiyo adigu maanta si qaasiyaad u salaami lahayd si khaasa haddii aan dadadaan u salaama dabcan samsam waxaad moodaa su-aalaha salaamaha si la isugu gado weli muqdishoba sidaas ay idaacadaha waliyaasha waa isoo hoosgeli jiray markii aad dhahdo hooyadeen salaama soo rafato walaalaan salaama abtiyaan salaama silbidaan salaama markii aad soo dhammayso si khaas ayaa u salaamay markii lagu yidhaahdo kursigina kula gudoomaa si khaasa dabcan waxaan u salaamayaa laakiin yaa laygu soo celinin si khaasa waxaan u salaamayaa dadkii igu casuumayba in aan dad salaamo ayaan si khaasa u salaamayaa way adagtaa markiidaa si khaasa ayaad u salaamaysaa laakiin mooga aan ku raaciye qofba farsamay adeegsataaye kuwii igu rogay ayaa adigana si khaasa u salaama laakiin su-aashaasu aad bay u adag tahay markiiba si khaasa yaa u salaamaysaa dad way ku haftaan dad waa la go'daan dad way galaan waa aaday u dhib badan tahay weliba qofkii ku yidhahdo si khaas ayaad u salaamaysaa markii way adag tahay laakiin isla markaas si ay u fikirto laakiin ma aqaano maanta xalwo badan baan cunay fikirkaygu wanaagsan yahay aniga ma mistahninba intaa ka keeni doontaa isnahay laakiin si khaasa ayay salaanta isiyaan si khaas u salaamaya maasha allah aad u mahadsan tahay runtii intaa kadib waxa weeyaan shaaficiyo waan helayaa inaan kaa keenay inaad salaantid laakiin haddana waan kaa bootinaya waayo waan ogahay xaalkaadi hase yeeshee dhegeystayaal daawadayaal idil ahaantiinba intaasna waxay ahayd kaftankii dhex marayay bahda halgan t v hase yeeshee dhanka kale mayo mooge oo aad wada taqaaniin ayaa isna kawaan ka saaran waxaan doonaynaa markan in markaa bal su-aasha uu weydiin lahaa iyo salaamahaba uu walaalkayga cabdinaasir siiyo kusoo dhawow maya mooge oo hadda farsamada gacanta ku haya maya mooge yaa jeceshahay inaad salaantid adigu ka faa'iidaysanaya fursadda halgan t v ee taaniidaha barnaamijka taaniidaha ee salaamo ما شاء الله عيد وناكسن عيد وناكسن عيد وناكسن عيد وناكسن دمان أمد المسلم كارهان أمد الصومال ملكستي جوجان وحيد الله عيد وناكسن كعيد عافيمات خير إيران خين هدي لك لو هالكان كسلام كلاني فم الأب وين كل شيء كل واحد كسلام يا إله أمال له هو اللي معان عبر علي إسماعيل صالح waxaa salaamaya dhammaan waalidkay habartay faadumo abtiga عبد الله ay xaliimo walaalahay la dhashay maxayto sacdiyo aniso hidaayo liibaan maxayto hana kulligood dhammaan isku dudub waxaan salaamaya carruurteyda aadku u jeclahay cali uu weyn yahay axmed muhiim dhammaan ummadda muslimka kuley aniga haddii la idhao si gaariya u salaamaya tiraday ka badanaya gaarka anaa sii horumarsanayo marka gaarka anaa sii horumarsanayo waxaan si gaara u salaamaya fanaxleyda sanadka shaxshaxleyda zamzam khali aan salaamaya oo barnaamijka daadihinayso aan si qaasa haddii la idhaayo u salaamaysa u salaama waxaan salaama juqfaa walaalkay oo muddada bisha ramadaanka dhan aan is arkin waxaan salaama shaafici garabkayga fadhiyo waxaan salaama sheekh maxamed oo belgiumka jooga ciid wanaagsan waxaan salaama maxamed calin oo ethiopia maxaan dhilahay kenya jooga waxaan salaama saaxiibkay liibaan xasan oo asagana dadka barnaamijka aada u maxata ah khaaska aada u badan waxaan si kal iyo laaba u salaama
oo salaan kashka iyo laabta kasoo goday ma dhihi jirno samsamay salaan kashka iyo laabta kasoo goday waxaa u salaamaa xamdi qalanjo yes haddaan ayaa pointigaaga ugu muhiimsan dabcan waa la kala baxay maanta waad wadan kartaa waxaan salaamaa shukri cali ciise waxaan salaamaa nimco ibrahim waxaan salaamaa maxato jamaad jeesto waxaan salaamaa jamaad dayman waxaan salaamaa dhammaan asxaabta ku xiran ister degan ismaaciil duqow cabdixamiid haddaan halal u tiri waa daala because magacyadii dhan horteeda fatxiye khaali sheekh maxamed waa sheegay ina muuse dakre horan jaamac ayaan kaleeto muniiro maxamed zahar puntland waxaan salaamaa dhammaan kulli haddaan kuu tiri magacyada dhan wiilka sanadka yaakow shaafic shari waa kuu sheegay yaan kugu soo celiyaa kulli waa tiri inta isheeda ay qaban karto anaa ka dhiman maleyna yaa ka dhiman dabcan anaa ka dhiman maleyna adiga waaba kaa bilaaba farxanayda sanadka waa mahadsan tahay maasha allah waxaan rabaa inaan idinla wadaago anuu salaantiin ay kusoo noqonayso ay dhaarsan tahay kulay hadal ma weynaysa meesha kala soo baxdo waxaan rabaa halkan waxaa idinku waa heys cusub oo noo soo saaray walaalkeen xuseen yuriyow laxanka waxaa iskale maxato shaaciye ninka miidiyaha khatarta maxato magaalada oslo degan shirbiistaha mu'alifka weyn maxato heystan waxaa ku luqeeyay walaalkeen xuseen nuriyow boqorka shirka heystan wuxuu ugu talagalay munaasabada ciidda maalinta ciidda oo aan jecelnahay inaan inta kasii dayno asagii barnaamijkiisa habeenka jimcaha dhici doono kuley shaaficiyaan oo faahfaahinaya asaga informationkas hayo waxaan jeclaan lahaa marka hadalka waan kusoo rafatay barnaamijka markii heestu dhamaata ayuu noogu dari doonaa walaalkan shaafici waxaan filayaa ama aan kaa wada sugnaaba waa heestii maasha allah ila dhegaysta heestii shiribka iyo walaalkeen xuseen nuuriyow codkii xuseen boqorka shiribka iyo laxankii maxato shaaciye amin ereyadii shaaciya iraade waa liiga fiican dhanka muusiga markii loo baxo عيد ونكسر عيد مبارك هو هستي عيدة الرياضي حسين بدر الشاعية عدكي بغرفة شريف حسين نوريو وبوزني محمد حاجي دومستي ستوديو وهاش أوسلو نروي xuseen nuuriyow iyo mirihii xuseen madoobe hase yeeshee saaxiibayaal dhegaystayaal
markan waxaanu si toosa idinkugu furay nambaradii aad markaa naga soo wici lahaydeen waxna ka mid ah inaad naga soo wici kartaan si toosa facebooka waxaa kale oo aad naga soo wici kartaan dabcan cabdinaasir xagee kaloo nalaga soo fiberka iyo skypeka iyo telefonka iyo nambarada shaashada ku qor dabcan waa aadna soo wici kartaan intaa waa inoo dhammaatay runtii salaantii idinkaga imaanaysay dhanka iyaga annagoo isku duubana salaantii waan dhamaysanay markana waa dhankiinii teleefanaduna waa idiin furan yihiin fadlan sheer gareeya oo subscribe gareeya okay daawadayaal halkaan naga daawanaysaan waa halgan t v stuudiyiisa magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway waa barnaamijkii aan ugu talagalnay tahniidaha iyo salaamaha maalinta ciidda ah dadka Soomaalida waan la soo wici kartaa telefoonada waan nii furnay shaashada mar walba waxaan leenahay ciid wanaagsan mar walbana tahniid ayaan ila qaybsanaynaa fursadan qaaliga aan idinku furnay barnaamijkan salaamaha ee tahniidaha ee ciidda waan la soo wici kartaan insha Allah aad iyo aad ayaan u faraxsanahay anagoo la qaybsanayna ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ciid wanaagsan ayaan leenahay ciid wanaagsan runtii idinka dhexgalay maadaama hadalka ku batay waa idin jeedaa ilaa hadda wax koola ma hayno koolashu way furan yihiin shaaficiyow maanta waxaa ujeeday boqolaal khamiis khatara kaa bahayo ciidda kulli zamzamna markaan ku galo way jeceshahay anaga miiskiisa ka hadlaynaa marka waxaa noolama jeedo afkeena furan laakiin khamiiska maanta si fiican oo qurux badan خميس حاجة كسر كده تبغى جلسة كنا غير خميس كان وحقوق فضيا قيمة دم شن دبي لح أيوة والله ميزانية ده سبحان الله يا ميزانية وبانتا ميزانية ده الدولة ده ما كلها هذا يا حسابات وين يدك هنتيجه ده كلا جرم واحد أيه طبعا صار له جنب العقد ولا مالسبيكا زمزم يجقفاي وحد مدينة مانت كل أفرتنا ما نقصود عيدنا وصنعت قصود كنا ذات صومالية سوء ولا بسمعين قرب ذي شعني كم مقضي سيدا ماشي له فناسي شيء عروت الوضع ما نقاضي كبد عيارين معانكي ما شاء الله وذا كان عبتان حلوة بسكوت وحرب المسينة ما أدري كره صومالية سيدا يسكوت دوبنا دي فرحت كم مقضي تاوها حتى تصاروا قلت هدي أنسان نقولنا إن دلكيني سنة صوص عطونا بدنا نقول أو سنة كده ببلغية بين عيدة دلكيني سوماليا كقادم هذا هو طبعا تاك هذا الملهن وين وناكسنتها لكن صلاة سيكون قبتها لودو كذا هلا ولي أمس هذه صلاة وحكون كنت أنت قرون ضد المسلمين هي كبطة يقع أنا مو فكرتي أنا مو بفكرين ما تيجي موريس وصلاة موريس كنت كذا كنت كذا لكن اسبرتيفا ودك كينو كنت عليه استادي عيار داونا استادي مقدوش بركة قاعد وقتي جتادي توصلوا وما تقدر لكن انت تقوي هذه كرتي انت المساجد كنت كان كرتي خاصه المساجد دي الروك الاول اللي سكير جري لكن كم فكرين ولي ما اسمهين ما في كبر لوغو طلع علي انك صوت دعوه وصوت علي دعوه رئيسيه حسن بلا حسن بلا واو فرحان عيد اوكي كم قال حسنو هذا متفق على المغسل walaal waan ku maqlaynaa runtii xataa qof aad u nasiib badan waxaa tahay telefoonkii ugu horreeyey ee soo gala stuudiyaha maanta markii aanu barnaamijkan bilownay xasan bile soo dhawow yaad jeclaan lahayd inaad markaa salaan halkan u mariso qof qaasa ehelada muslimiinta runtii adoo noo sheegaya meesha aad ku sugan tahay ومahadsantahay aad iyo aad ugu mahadcelinayaa fursadan qaaliga la siiyey waxaan salaamayaa dhammaan waxaan joogaa horta ku sugnahay Oslo waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan waxaan leeyahay ciidan ciideeda kala ku gaara bash iyo barwaaqo waa tahay dhammaan intiina meesha fadhidaan si qaas idin salaamayaa barnaamijkan aad soo diyaariseen waa idinkaaga mahadcelinaynaa insha Allah taan nahay dadka shaashadaha ka qaalanaysa
waad mahadsan tahay walaal waxaan ku weydiinayaa xasan bilow ka waran maanta ciidii iyo meeshaad kusoo dukatay iyo aragtidaad ku aadan maanta ciidii ka dhacday Oslo horta aada u weyn maantay meelo badan aan soo maray waxay ii ahayd intaan Norway jooga saas uma lugayn waa taalanaad guriga soo galay nakawda taaya malaha kilomitirka lagu talagalaan dhameeyo waa soco waayaba ma isleedahay dabcan ma isleedahay ciidani waxyaabo kale ayay kaga duwaneed ciidihii hore والله عيد واحد كله ودي وانت ورت أنا باكستان اللي تكلم ما فهم طبعا مركا حتى صلاة وكلا تجسنا هاي سيد الصومال اللي تكتب ما فهم صح واقرتين أي مفاتحة يكون باللعبان كذا طبعا كذا ودك تان تكبيرته هذا وين مركا وحواي مركا دد أجنبي اللي تكلم يسوع أنا كمان قارن الماش الصومال سوق معطي مركا باكستان اللي تكلم سفي عنينا وفرحت بند مركا دد يوكل الدول أو صومالي كلي أهينا عن العيد هذا شو عيد رنتي وكاجمات علنا إنك سوق يبقى كذا سقاس يرجعنا هيدنا وسلامتهم وحن سقاس وسلام يا تحبك قجفاء الله فديه يا قديمه ugu dar xasan bilo wuxuu kamid yahay wariyaasha reer Oslo wariyo waa abwaan waa lexta radio Somaton ay kamid ah waa abwaan wax uriyo ما شاء الله هذه أنا أقصد ويننا ما أنت لو إحنا هاي عمرنا هذا وين ما كنا كسؤال هذا يجا هباني بالقروق أبوان وريه سولو حسن بلا أيوة بس إنت كذي كيس هذا إيه سلام يا وحنكلو سلام يا صاحبك أبناش يمننا ما هدي مقلع محل يا هاي عيتو حنير رجينا بس يبرواقه حسن بلا صاحب ما أنتم مجرى ما دام أتى أبوان واحد ترسي أو كصابسن عيدة والله وحنا ترني وايو أفكي شغل كمان تاجنا أبوان واحد تريه وما يفهم مالك استوى وأنت ما دام رمضان لقى بحي ما أنت واحد نوع أنت اللي يعني قاعد بسكوت ببنان فاهم محمد لنا يا دنك كلا قيبتها سبورتي جينا تكملتها هاي مربعد هذا بناش سلام بس أنا أقول سلام من أرنتي عادوين مركب واحد الله هاي كل شافعي ما يموجو أيجي نقاط التلفون كلاوي ما دام أنا وجدي أرسلنا خايا لكن ده مركب أديك كذا كشيء كيسان برنامجك وحن سلام موقع إنه كان قط التلفون كجرا برنامجك خمسة حي عيان سلام والله ما أنت وظيفة صحنتها وكفتم كوفرية هاي عجلك جرع ولبا عادوين مركب حلا هاي هل نعرفه سمسمية قد فوق صوت ود كذا وعمل الجري كأنك تطني ما وكبر لك وسمعتوا صاحب أنا كنا قلنا عيدري هذا كجرنا والله عيد وين مركي لقارو وعفر تأديب الجينا إن شاء الله تعالى برنامج كانوا فرحين هاي ما دام قبر أي كنت تماشى هذا في عين برنامجكم مركز سنة تمر هو وحواي هرميك إذا عادها التلفزيون حسن عدد ما سنت هذا إيه سلامة يا وانا مع سنتي فرصة دايس أوكي ما سنت وحن ما سنت وهجاك دقيستيال وحفليا فريق مقدنا أنا لهذا داوديال فريق مقدنا بل قد كحجة بلينوي عندناس رو. قد كجرا ولا داود كسر دواء برنامج كتاني ده سلامة عيدة. هلو. وكل يوم أبرار سلامة يا أبي كنت أبرار بأمان حقي ما يوجد بأمان الداش الترافيك. وكان أديكو ما قاعد كبلاوي ماشي أجوكتي أديكو كفاء إذا سنة فرصة قالي جاي كوتر بشيء هلجن تي في. وما ستي دماتي أنقسي مرعيو قادر محمود بن خلقان وجه النور. وصل وجود بسلام صاحبك برنامجك يرجع الشعب أنت. يا يعني السلام يا إن دماتي يو إن دريسات برنامج كحنا هاي لا يا هيدونا. عيدونا كان من لم يدعي يوم سمرنا وده. إن هدي أن سلام تقولها قصي كلا إن ما سلامة يا وقتي برا أرجع سلامة يا كنت ما سلامة يا يما يقول سلامة يا شافعي يا سلامة يا يما سلامة يا نفع يعني سلامة تدام قلت سلامة يا هوي سلامة يا أبا سلامة يا إنه سلامة والله
جدا صاحبتي سلام يا صاحبتي أنا عبد الزقيقي وسلام يا عبد الشوشكات وسلام يا مختار صديق هبل إيوه السياسة من برنامج فحوى المركز والسلام. اوكي هذا وين حاجه كل عيد مانت نيو وحن كل نيو جرول أنا كل كورونا اوكي يا جعش هاي ما فرصتنا هذوك فايسن قف قاس والسلام يسمى مجرى والله نيو فحصك ما هبلاي من بحر لكن يريد أن تسلام يا حديك الشيء كذا وقرأ هذا شيء كذا البنات كذا مثلا حان أنا عن أمي سنة أنا في بداية أنا مثلا اوكي ما صرت يا صاحب هذه كوسو ويننا داود يا شكل سلام البنات نيو اوكي هذه ما صرت كوسو برنامج mahadsanid cabdinaasiro aad baad mahadsantihiin dhegaystayaal daawadayaal meel walbad caalamka ka joogtaan halka aad nagala socotaan waa halgan t v bal Easter oo iyadu baryahan oo dhanba aanaan ismaqlin oo soonkii oo dhan aan kala maqnayn aadna waan u jecelahay aan ku bilaabo Easter salaamu calaykum waxaan jeclahay daawadaha kale inoogu jira inuu niyara sugo waxaan siinaynaa Easter degan oo iyadu markaasi qadka telefoonka si toos ugu jirta Easter kusoo dhawow barnaamijka ciida iyo weliba salaamaha loogu talagalay ehelada qaraabada asxaabta iyo intaad jeceshahay inaad salaan ugu gudbiso sidoo kalena kaftanka maanta kama marna maxaan idhaahdaa waa tuuran kartaa soo dhawow ما شاء الله سمسمي واندوه هاي عيد مبارك وتدمان ومد الصوماليات ما أنت ما شاء الله وعمالي آدي آد قيمة بدن وفرحة وين له هرت وحن آدي آد السلام يا عليك سمسمة ما هتسند سيدوك الوحى سلام يا جوكفاي سيدوك الوحى سلام يا ميا موجة لما وحى سلام يا ومد الصوماليات مالكستي بنودك جوكتو waxaan kaloo salaamayaa faamilkeyga hooyaday Safiya Axmed Xuseen oo ku nool wadanka Malaysia waxaan kaloo salaamayaa walaalkay Maxamed Qaasim oo ku nool Jarmal sidoo kale waxaan salaamayaa walaalkay Cabdi oo asagana ku nool wadanka Malaysia waxaan salaamayaa habartay oo ku nool Sweden waxaan salaamayaa saaxiibtay oo ku nool Talyaaniga Xaawo dhammaan waxaan salaamayaa intii maqalkeyga iyo muuqaalkeyga taqaano ciid mubaarak عيد مبارك ومركي هوريس وفتو مرة نصوب عادي هذا كوسو دوينينا عادي أنا فرح صنعي يا قاص أو سلام يسا فرصتنا هذوك فايدة سنة والله وحاسي قاص والسلام لها وما شاء الله فرصتنا أو فايدة سنها شافعي إذا أكفر يا سقاص والسلام وربي يستري مانتا ما هتسنة هذه سمسم حقاك وعيد ما أنت استر ما كيف تقول المان هذا المتجر استر باقت كأنه وجرت استري سقاص على السلام يا شافعي سيفي على دي وقرا تبقوا سكيلو لكن أنا كميلو وينو كليلا ما شاء الله هذا runtii maalmahan uu idinka soo maqnaa Shaafici isagoo markaa annaga runtii waqtiga nala qaadanaya fasaxiisa ku aadan hase yeeshee maran dheereen uu idinku soo aadan yahay waxaan filayaa roogii casaanka ahaan inuu diyaar yahay waxaan joogaa hadda Denmark joogaa ma ku iiday dabcan ma sha Allah aad baad u mahadsan tahay walaashii هكريبنا سبسب انت سخاصة يسلانتي انا سخاصة مرة يقول مرة سخاصة يسلانتي لكن مجلس مايا مرة يقول ريقي سموكتها لكن هذا استرينا بصوخة بطي انت كلو نوي كاماركتي كروس بكاسار سخاصة انا كوسلانا ديارنا هذا وين dad badan oo taageerayaasha ku jira ama salaga yaabeen طبعا هاي
ugaaska xitaa waa la isla yaqaana aad baan ugu faraxsanahay runtii hambali ayaan leeyahay mar kale أنا لكن إلى وحسقاسي سلامة والله. horta muddooyin badan baa aan kuu sheegay ninka la yidhaahdo memogo maalmo badan baa la yidhahaa shaafic u hambaliyey laakiin qofan ugu hambaliyey waan garan waayey moogtahay laakiin maanta Easter baan ugu hambaliyeynayaa aad bayna u mahadsan tahay markii hore su-aashiisa uu ka warwareegay laakiin jawaabtii runtii waan helay waxaan idin leeyahay intaasi way noo kaftane Easter bal ka waran maanta iyo halkaad joogto iyo sida looga ciiday والله حبيبتي ما انت دنمارك waxaa loogu iiday ma sha Allah ayya rabbi waxa ku raad Soomaalida hal meel la isugu imaaday meel ilma iskaga baashaalaan ma sha Allah wallahi mahadsanid waxaan doonayaa inaad noo sharaxdo ciida aad la qaadatay reer Denmark iyo waliba farqiga u dhaxeeya ciidahaagii hore والله ciidahaygii hore iyo ciida Denmark maanta aan ku qaatay ciida maanta Denmark aan ku qaatay Soomaali badan ma sha Allah jacayl isxariirnayso sidoo kale Sweden xataa kama liidatay sidaas si fiican aan isku soo dhaweeyaa inkastoo qurbaa markii la joogo Soomaalida maalintii ciida ee u tahay maalin feesta aad iyo aad weyn dabcan maalinta iyo kooda luuliya iyo maalmo kale badan ayaa jira hase yeeshee aad baan runtii kuu salaamaya waad ku mahadsan tahay inaad maaragtay salaan qaaliina soo gaarsiisay mar kale hambali ayaan ku leeyahay maalintaaduna ha kuu qurux badaato ciid wanaagsan ayaan ku leenahay jukufa maxaa dhihi lahayd Easter degan oo iyadu ah soo qaybgalayaasheena mar walbana saaxiibkana la ah okay mar walba waan soo dhaweynaa waana ku faraxsanahay inaan igala soo qayb gasho barnaamijkan ciidda salaamaha iyo taaniidaha salaamayaan waxaan okay please share gareeya barnaamijka subscribe gareeya since Easter hello waa hagaag intaa ayaynu uga gudbaynaa Easter aad bay u mahadsan tahay run ahaantii barnaamijkii ciidda iyo salaamaha ayaynu bartamaha kaga jirnaa waa maalin qurux badan waa maalin ciideed waa maalin aynu dib isugu soo laabnay bil dhan oo soo nahayd oo aynu kala maqnayn hase yeeshee meel kastood caalamka ka joogtaan waxaanu idin leenahay kulli caam waantum bikayr barnaamijkiina dhegeysi iyo weliba daawasho wanaagsan markana heesta ciidda ayaan doonaynaa inaan ku wada nasino saaxiibada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الجنتين ويهاتي maanta si wanaagsan u ciiday ma sii wadi karnay markana halo assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الجنتين وتعود ما تنتهي ولا هذوك بلابي مجا مركن يا عبد الناصر أيان مركا وريجينا يا وبرنامج كله دادي هنا صاحب كسودو صاحب كسودو هلكن تي في أو ستوس أقول داونيسيد وبرنامج كان قلت لك إن سلامها يتاني ده هالكاجا عيدا يا جعشة هلكن لك سلام وحن هلك مركا ورمج عيبو أحمد حسين وحن شو ذلك ترملكا waxaan aad u jecelahay oo halkan aan salaam kaliya laabo aan u marinayaa dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan iyo guud ahaanba aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb qaato barnaamijka oo aan idila soo xiriyo iyadoo waqti ku qaadato la markaan hore u waayayba wax saaxiib Axmed waxaan noo sheegtaa qaabka loogu ciiday dalka Jarmalka iyo magaalada aad ka joogtid dadka Soomaalida daanagu Frankfurt baan u jirnaa saacad dadka Jarmalka jooga shalay bay ciideen badankoodu anagu nasiib darro guryahan ku tukanay maanta dadka Soomaali ah meel hool ah oo masaajidada Turkiga badankoodu shalay bay ciideen marka anagu xagga idinku aad masaajid maanta ku soo wada tukateen dadkiina oo dhami waan inta waan kaga yeelan duwan okay maxaa ugu wacnay malaha miyaa dadka Soomaalida masaajidada ama meelaha ay ku kulmaan oo ciidda ay ku ciidaan masaajidada waxaa la Turkiga meeshan aan anagu deganahay laakiin Frankfurt adigu waxa jirta masaajidada ay Soomaalidu leeyihiin inkastoo ay Turki maamusho haddana masaajidadii shalay bay ku ciideen Turkiga ciid kamay ahayn xaqiiqa badankoodu ciiday Jarmalka dad Facebook-da kala socoteen iyo hadii kalaba okay magaalooyinka dhan oo dalka Jarmalka ma amaan shalay qaarkood ka ciideen
ama mas'uuliyad badankooda oo waayo Turkiga ayaa anagu aanu aad xisaabsantiin dabcan Turkigaanu iiday la xiranay dadka badankoodu marka Turkigay la ciideen oo jalwadkan masaajidada ka soo qaadanaa waa Turkiga waa masaajidada Turkiga kan lagu soomo iyo kan ugu afuriyay yaa jeceshahay marka inaad salaantid oo ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada si toos maan ehelkayga iyo qaraabadayda baan halkan uga salaamayaa gaar ahaan idinka oo haba suurtageliyay barnaamijkan inaanu daawano markasta mihniyad iska saara oo xil iska saara ku howlan sidii dadweynaha u raali gelin lahaydeen marka aad baan idin salaamayaa aad mid la mid ayaan hawada kuu soo marinaya saaxiib qof qaas oo aad jeceshahay inaad salaanti ma jira maba maqlaya maxaan halkan ka salaami dabcan su-aasha haddaad maqashay waabadna maqlaysaaye waxaan filayaa inaad jeclaan lahayd inaad salaantay ehelada qaraabada iyo asxaabta intaad jeceshahay hooyo iyo aabbo iyo dhammaan faamiliga adeer abti edo guud ahaan waan salaamayaa si kaliya laab ah aad baan u salaamayaa aad magacyadooda haddaan sheegi lahaanayna maba maqlayaan oo waa waddankii bay joogaan badankoodu si qaas yaa u jeceshahay inaad u salaanto marka cabashaaba odo de xagga sare ee TV-ga lambarku kuma qorna marka dadku way adagtay siday xitaa lambarka ay ku helaan aniga ilaa dhowr qaadatay moogta inaan lambarka helo fiberka waa hagaag walaal waanu soo qori doonaa aad baad u mahadsan tahay waanu kaaga mahad celinaynaa waxaan filayaa in lagu weydiiyey su-aasha ah yaa jeclaan lahayd si qaas inaad u salaanto shaafici waxaan aad jarmalkaan aad u salaamaya waddankeedan joogo okay waayo walaal aad baan kugu salaamaynaa insha allah ciyaarta faransiiska inaanu aad u wacdaryi Brazil oo kale ku dhigno waataa walaal aad baad u mahadsan tahay waan kaaga mahad celinaynaa kasoo qaybgalkaagaas dhegaystayaal daawadayaal idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaan idinka codsanaynaa inaad fadlan sheer garaysaan oo haddii aad awoodaane dhanka kale waxaan filayaa in dhegaysta uu qadka inoogu jiro haddii kalese waxaan jecelahay cabdiqaadir salaamu calaykum walaal وعليكم السلام ورحمة الله. waxaad kusoo dhawaataa barnaamijka salaamaha ciida waxaan doonayaa waan dhowahay adeer waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta gaar ahaan Soomaalida meel kasta adduunka ka joogaan waan kaa qaadnay annaga ka mid ah especially bahdan halgan TV mahadsanid walaalkay mid la mid ah hawada kuu soo marinaya saaxiib خاصة ما يموجي نقص صاحب باي. waataa walaal waad mahadsan tahay waxaad noo sheegtaa halka aad inagala soo xidhiidhay imaan sida looga ciiday iyo aragtidaada ku aadan ciidii halkaa ka dhacday والله أنا واحد شوقا ماليزيا شوقا ورثي في عمل لو عيد وطن إسلام لكن هل علت بولي وطن كان طبعا ما أنت عيد أو سبيشال أنا قلنا قبضتها وضع معي الصومالي أما أجانبت كذا وطن كان أو دلام طبعا وطن كأني مثلا شوقني وحواي ما أنت عيد كا shanta bariga ka horeysa hodheelada iyo waxa la marmarin jiray ranchi iyo kuraasta la dhaqi jiray maqaaxiyaha geel iyo adduun iyo waxa la qali jiray subaxda ciida la furi jiray laakiin Malaysia way ka duwan tahay xataa saddex bari lama furayo maqaaxiyaha marka waxay dadku ku badaysaa in McDonald's iyo KFC iyo rootigaaga iyo madax dhigis iyo aagadaada biyaha marka cunto male micnaheedu waxaad ula jeedaa maalintii ciida saddex maalmood ka sii dambaysa saddex maalmood ka sii dambaysa cunto meel furan ma jirto okay so markii maanta kale ciidan ayay saddex maalmood kadib furaan saddex maalmood kadib ay furaan halka Soomaaliya laga furi jirayba subaxda u horeyso adigoo aan salaad tagin ba aad beer ku dhufay jirtay halka saama miyeedaan lahayn marka dad Soomaaliya oo maxay la suuqyada maqaayad ka furta ama ka maaragtay shaqeysta way leeyihiin waa caasimadda waddanka laakiin anaga caasimadda ma joogno oo gobol baan joognaa marka ma jiraan Soomaaliya halkan ku leh hodheel ama ka shaqeysto kale ma jiraan waa arday bay u badan maalintii ciidda magaalada dhan ma dansantahay oo meel furan ma jirto maalinta ciidda nin walba qaraabadiisu aadaya gobol haddii uu ka shaqeyn jiray caasimadda tuulo reerkooda joogaan
meelahaas la kala aadaya marka wadadii waa jam haddaad damacdayna waddanka ka dhexdido magaalo kale aadid ma aadi kartidba waa jam ha dabcan ma shaqaynayaan laakiin waxay kusoo ciidayaan familiyadii ay kala maqnaayeen familigii bay dib ugu noqonayaan way ciidayaan bay dib ugu laabanayaan dabcan meel furanna ma la helayo marka adigu saddexdaa beri macdonald baa la cunaa may dhibaato kama taagna runtii iyada naftigeeda in familiyada dib isugu noqdaan oo maxaa idhaha familkii oo dhani uu wada ciido runtii waa dhaqan wanaagsan waana loo baahan yahay inay familku hal meel isugu yimaadaan oo maadaama qof walba ay shaqaynayo bay isugu yimaadaan weliba awoowe iyo kanyar iyo kulli waxayna xirtaan dhar isku eg bay wada xirtaan waa very positive runtii familku inuu isku soo laabto awoowe adeer iyo ehel iyo qaraabo meel la isugu tago la feesteeyo waa runtii dhaqan kale leeyahay marka halkaasaanu joognaayo macdonaldkaan jiidayna waa tahay idinkii macdonaldkiina waan isugu kiin ducaynaynaa iyaad si qaas u salaamaysaa maanta wallahi waxaan si qaas u salaamayaa xaaskayga oo aan aada jeclahay oo joogta waddankan Sweden waa tahay walaal aad baad u mahadsan tahay kasoo qaybgalkaagana waan kaaga mahad celinaynaa waxaan ku leenahay ciid wanaagsan ha ku ahaato runtiina dee qof nasiib badan baa tahay haddii aad maantaba la wadaagayso ummad Soomaaliyeed oo ku dhaqan daafaha caalamka oo daawanaysa waana ogtahay social mediaha meel walba waa laga daawanayaa aad baan ku salaamaya aad baa idin salaamaya macala ciid wanaagsan baa leeyahay sanad walaalo markana waxaan eegaynaa qadadka telefoonada oo soo galaya hase yeeshee waxaan doonayaa inaan siiyo Cabdinaasir oo isagu barnaamijka ila daadihinaya waa markiisii Cabdinaasir mahadsanid samsam sheekh Ahmed waxaa ku jira daawado kale qadka kusoo dhawow daawade adoo ka faa'iidaysanaya fursadan ay ku siisay halkan TV barnaamijka taaniidaha salaamaha ciidda aan u talagalay magacaaga adoo ku bilaabay هلو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بيل علي يا ملينا يا قف اوكي واحد صاحي داود واحد نسو قف كلا كا هوري قد كجر بيل كسو دو هلو ودوه بوسيتاي في عن كسو دو برنامج مطلق بشي تاني ده سلامها عيد هلكن تي في يا جعشاي هلكن انك سلامتي مقعد ادو بالله magacaygaanoo ku bilaqaayo waxaan halkaa ka salaamayaa dhammaan familkeena reer cali baashi meel kastay adduunka joogaan waxaan salaamayaa shaqaalaha halkan t v ugu horeeya shaafici muxidiin iyo adiga iyo gabadha meesha fadhiso xaabteeda fadhisidii kulligood waxay leeyahay kullu caam wa antum bikhayr حكيت أجي عشاء هنا سلامت سقاس وحجعل هنا سلام طيبة فرحية المر وحجعل هنا سلام وجيل على النور وانت جوجو وحجعل هنا سلام ودمان انت مقل كيجي موقعك تقاطع aad baad u mahadsan tahay sidee looga ciiday ما شاء الله سيفي على لوجي نيروبي ما شاء الله ضد كده ولا فرحتين وايا اللي عرفها اوكي سي وعنا لو عيد ما سيفي عنا لو عيد مالته مغالده نيروبي ee dalka Kenya سيفي على لوجي ما شاء الله يدني تبي لا قرن وقرسيس ان شاء الله تو ما سنتاي داوده daawadaha kale ugu gudbito insha Allah hello waa hagaag waxaan filayaa in marka ay gabadhi ku jirto assalaamu calaykum halo assalaamu calaykum baa ku salaamay habaryar waan kaa qaaday see tahay waa ku salaamay zamzam iyo alarliibaan wow waa ku jeclaa habaryar adoo ku bilaabay magacaaga iyo meeshaad joogto عبدالرزاق شافعي معلم فريد وحسنا ريرتا معلم فريد في دارمين القاية تمام سلام ولا دين بجعل وسلام يا بيبي شافعي معلم حسين واو ما شاء الله الله كبرك يا هبرير
anagana sidoo kale aabo iyo dhammaan anagoo isku duuban waan ku salaameynaa hooyadana waan salaameynaa dhammaan ehelada qaraabada habaryar yaa kala salaamaysaa waxaa kala salaamanaa walaalaheegii saadam saada igraaaya iyo adeerkay ayaa hernooge iyo adeer fahad maasha allah salaama aada u mahadsan tahay mahadsanid habaryar aan idhaahda eedo intaba waan isku ahay waxaan ku leeyahay soo barbaar maxaa kaloo jeclaan lahayd inaa idhaahdo maasha allah ciid mubaarak waxaan filaya inaa muqdisho joogto nairobi yes hello habaryar ma dhamaysatay salaano yaa kaloo jeclaan lahayd inaa salaanto ها شمس المهدة إدوار بعدها إنتي أدوم سوقاريتم كنول إذا نيجان كلنا إن شاء الله الله نبارك آمين 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 هذا أمهات سنتا هابرير يا كلا هابرير أوكي واتا ودمات سنتا هاي آدم كو سلامنا هابرير صوبر بار أيام كلنا هاي عيد وناكسنا أيام كلنا مركلة السلام عليكم أبو سلام السلام طبعا وانكم بالله sidoo kale aniga ku salaamaya laakiin waan ku bilaabo laakiin ilama aad saxaabe aniga mid la mid ah hawada kuu soo marsiiyey waa ku salaamayaa aad baa lama hadsantahay waan ku bilaabo socona laga yaabaa ما شاء الله عادي هذا ما سيعمل كنا أنا نروح سلامي ما شاء الله ما أنت لكم معك كل كلام الشيخ محمد هيا وإنه هوي جنبه ما شاء الله السلام عليكم شيخ محمد waxaan doonayaa inaan siiyo cabdi naasir وعليكم السلام شيخ محمد نور ولا قهر يا سجاح شيخ محمد كسر هو برنامجك قلت لك شيء هل كان تي في تهنيدها سلامها عيدة أنا كلها دمان تبياش برنامج كان قرص بدل يوم ما عيدة أن قلت لك جنان بعد هل كان تي في ما هو بدون ده على الفيديو وحلا عيد ونكسن عيد مبارك كل عام وأنتم بخير دمان ومضى الصوماليات مالو بأي جوغان وحلاها عيد ونكسن عيد مبارك سنة كان سنة في إله سبحانه وتعالى وحنكبرنا يا وما عنكونا برننا إنه النبات يتوافي بشبش مبارسية وتنكيننا وكذبا مثل برواقلتا طبق لو سوهرتو إله سبحانه وتعالى وكذبا آمين هاي كبرنا يا عيد مبارك آمين شي محمد حقيت جوكتا أو سنين لو قعد المقالة ده جوكتك waxaan joogaa waddanka Belgiumka gaar ahaan waxaan joogaa magaalo la yiraahdo Verviers waddanka Belgiumka saad u ogtahay waa laba qayb qaybta Netherlands iyo qaybta Faransiiska anigu qaybta Faransiiska deganahay asalkan markaan ka hadlo shacbiyadda Soomaaliyeed ama dadweynaha Soomaaliyeed ee ku noqon waddankan magaalada ani aan deganahay saaka waxaa looga ciiday si aan looga ciidin ciidihii hore ee lasoo dhaafay waddankani ama magaalada aan deganahay sanadkan Soomaalidu waa ay ku soo badatay masaajidaduna waa ay ku badan yihiin marka biidnillah maanta waxaan u ciidnay sidii Soomaaliya looga ciidi jiro kale waa ciid aan weli ku arag intaan qurbaha imid ama intaan qurbaha joogay ciidan kale ciidan weli aan arkin ay ii sheegay inay tahay aan dareemayaa
marka dhammaan bahda halgan t v waxaan leeyahay meel walba aad joogtaan ramadaan mubaarak ramadaan kariim anigoo ka faa'iidaysanayo jaaniskani khaaliga ah ee ay siiyeen bahda halgan t v walaalaha khaaliga ah oo ugu horeeya aan salaamayo waa master maxamed axmed محمد عبدي أحمد صح؟ صحيح. مستر موجة ولكن شافعي محي الدين ولكن سمسم أحمد ولكن يبان يا أديكو أندري مايو ولو ما قاعد أنا هايين لكن كم يتحاجة على هالجن تي في لكن تذكر ما يلو بكموضة سعون كرا لكن أنا بقولي إذا كلا سعود بارك الله إلهي إذا بركة هذه ما صنت marka intaas aan ugu gudbo waxaan halkan ka salaamayaa labada qof ee dunida iyo qaalisan ilaahay ka soo kooda sabab ay u noqotay in aan adduunkan aan ilaahay u keeno isoo barbaadiyay igu soo tacabeelay maanta heerkan isoo gaarsiiyay waa labadayda waalid hooyada iyo aabahay ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryayaa aabba iga xanuunsan inuu caafimaad ilaahay ii siiyo dhammaan familigeyga iyo faniskeyga waxaan leeyahay waa adigoo ah maxamed xuseen axmed soomaalidu u taqaano hagardiid waxaan leeyahay ciid wanaagsan kulla caam wa antum bikhayr sheekh maxamed aad iyo aad u mahadsan tahay وحاجات قد ما تنتهي إلهي عاف ما تكوسيو وحنا نجعلها هاي إن ماركتي متصومالية دين داون إسا ماركتي دعاء نقول كلميان الشيخ إن شاء الله بدنا نقطع إنه وجيران سلامتي أدوسو قد بسيئات بانو كاغا قدوني وكاغا ما أدرينا نادم والبابا حورش وين أدنا لو بدنا أد بدو ما تنتهي waxaan doonayaa dhegeystayaashiga haddii aad awoodo inaad siiyo خيلاش أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله الكسو دواء برنامج كتهنيدها يسلامها عيدة وقطة لقشي تي في هالكن أديكو كبلا مقعد ميشا جبت magacayga waa cabdirasaaq axmed qaandiid waxaana ku noolahay wadanka canada gaar ahaan toronto maasha allah yaa jeceshahay fursaddan qaaliga ay ku siisay halgan t v inaad salaantid hawada salaam u marisid waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta oo dhan ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr gaar ahaan halgan t v iyo shaqaalihiisa qaadatan maynoobe iyo samsam sheekh axmed gaar ahaan waxaa salaamaya oo kale familkeyga meel kasta adduunka ay ku joogaan dacaladiisa okay waxaan ku weydiinaynaa sidee qaabkee loogu ciiday magaalada aad joogtay canada magaalada aad joogtay toronto sidee loogu ciiday qaabka loogu ciiday si kooban nooga sharaxsan maasha allah si nabada nagu soo dhamaatay ciidiisa farxad leh dhamaashaad yaa jeceshahay sabqa muslimiintu waxaa rajaynaya ciidan ciideeda kale in ilaahay bashbash iyo barwaaqo nagu gaarsiiyo wadankeenu namada ما شاء الله آمين آمين إني كان عادي بما سنتي وما سنتي وقتك أويسين صومالي خاصة صومالي أويسين هذا يمهد عنا ما تسمى ذلك يعني أنت عندك بحين كهرة عندنا هنا بوديات جمال لتسقاس هنا وسلامتهم سنت تاس دي لا هذا لا يا هذا دي لا يا ورا واي بدي بس خاصة ما شاء الله بعد نقلنا ولكن وحك بقى يا متقا قرب سارة عبد الله سوق علينا نور ويسوق على مركوك سلام يا إن شاء الله سلام الله سلام هاي تانكيو أنت سوينا كفتن وحاجة قد ما سنتهاي دقيستها حاجة أيانسينينا جماعة ديمون أو أحكي بدأ أذو قرح بدنا أيها قد كجرت جماعة السلام عليكم هلو جماعة هلو قفك كلا قط هلو جماعة من مقشان هلو وهجاك وحسيننا دقيستها حاجة جماعة وين وصل لابنينا نوراني أي نسيننا أنت أي جماعة مركزي تلفونك أي كوغانيسين إنه مركز الله هذلينه
nuuraani oo kusoo dhawo barnaamijka waan ku dhawahay walaalaheyda dhammaan halgan t v waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr وانتهى كل عام وانتم بخير بل عبد الناصر وبرنامج كده دادهنا يا دنيا هنا كبور ريديو انكي صاحب اوكي صاحب كسو دو برنامج تاني دا سلامة عيدة عبد الناصر أنت ودوها صاحب waxaan joogaa magaalada caasimada labaad iyo sabuur ku tafaad meel dhaya joogaa marka si weyn aan ugu ciiday maadaama ciidda hore aan ku ciiday Afrika balse ciidan ay noqotay inaan Yurub ku soo ciiday ما شاء الله yaa jeceshahay inaad adoo ka faa'iidaysana fursadda qaaliga ay kugu talagashay halkan tv inaa hawada u marsiiso salaama waxaan hawada u marinayaa salaam dhammaan waalidiinteyda iyo walaalahayga hooyadayda oo ku nool wadanka Holland Netherland iyo walaalahayga oo ku nool Holland iyo walaalahayga oo ku nool Kenya walaalahayga Ingiriiska ku nool dhammaantooda iyo intii Sweden ku nool waxaa leeyahay inta Norway ku nool ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr ayaa leeyahay bashbash iyo barwaaqo meeshaan waxaan ka salaamayaa si qaas ugu salaamayaa waxaa la dhaafay qaaliga ku nool wadanka Kenya mahadsanid wallahi runtii maanta waan u baahnay sida khaaska maaragtay inkastoo ay ficnaan lahayd inaad magaceeda noo sheegto haddana oo aad heblaaya salaamiya aad tidhaahdaa si yeeshee fadlan share gareeya oo subscribe gareeya meel kastood caalamka ka joogtaan barnaamijku waa barnaamijkeeni waa barnaamijkii loogu talagalay Salaam salaad ali gabeer ee ku nool magaalada Kenya gaar ahaan Sodbi meel la dhahay toonka magaalada Kenya salaad ali gabeer magac culus waay طبعا قبل ان نقول ديردا gabadha magaceeda adiga naftigaada aad madaxa la qabsatay dabcan in lagu dhiirado way mudan tahay aad baan ugu hambalyeynaya gabadh culus runtii allah ku barakeeya ayaan ku leenahay caruurteyda aan salaamaya iyo maxamed iyo faadumo iyo waxaan salaamaya isaar ما شاء الله ما شاء الله ولكن أد بدو ما هتصنت هاي كسوق قبل كاغو وناكسن شرفت له يولي بسيدان فاميلي كاغو دوغهم بلين إنسان داو مالتا ولا شيء زمزم موجي يا ناس راني سلامة عيد مبارك يوم الصومالي باش هم حسقات أبو سلامة صاحبك كنا الوضع في إنجليزي الدولي على عبد الله شانو معي ما شاء الله في لي إنك مغلي أموك مغلي دون رنتي سلامة هذوك بسي إن شاء الله إن شاء الله إذا ما أنا صاحبتي الصومالي كنا إن شاء الله أنا قلنا وقفنا إلهي تركي عليه ما تسند ولا كي هذيك قوة وحاكو هيكتا ولاشن سلام حاجي أيوة سلام السلام عليكم وعليكم السلام عبد الناصر يا لوجد بنيا اوكي داود كسو دواو برنامجك تانيدا سلامها عيدا adigu magaca ku bilaabay meesha joogto halo سلام حاجي سلام حاجي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته dhammaan bahda maxaan ku dhahaa ii sheeg tv-ga halgan tv halgan tv waa igu margala halka igu soo fuqo waacsan farxadda ciidda daraaddeed waay dhib ma lahan dhammaantii waa salaama shaafici samsam cadeey mataqaanaa ii sheeg waxaa kaloo salaama maya mooge waxaa salaama wiilka kale jokoraay نيروبي وصومر تأمرنا شكرا لا شكرا مالك جوفاي ولا عبد الناصر وجوفاي بجيف كان لها لكن جدد قبل ما هذا الكوميدي طبعا عبد الناصر جوفا ويان مقع صحدا سيشين من هذا الكوميدي ولا شو حن جعلنا إن هذا كسي وضطو كفتم كفرية هنا سمسمي waxaan jeclaan lahaa Cabdi Naasir Leebiga Keem Cabdi Naasir kal ilaawa u salaama mid la mid ah dhamaan waxaan salaamaa ummadda muslimiinta meel kasta ay joogto ummadda Soomaaliyeed qaasatan meel kasta ay joogto waxaan leeyahay ciid wanaagsan sanadkan sanadkiisa Ilaahay nagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo iyo wadankeena nabad aan ku wada ciideyno Ilaahay na gaarsiiyo ciida wadankaaga ku ciidaysid farxad waxaa dareemay kal ilaad khaasatan aniga ilma camal waa habeenka farxad hurdi jiran laakiin ciida ma sugi jirnaa fiidka sii gashan jirtay
maya waa saas waxa waaye waaba ku jiiri jir maanta cilaansa iyo orda lagu jiro waa ogtaa maahano caawna farxadeeba ku hurdi weynaayo aad u weyn sida moogo kale sida may moogo kale mo may moogo xal dhan hurdin oo dhaay ciidaas والله هردا الناس العلم way ka muuqataa waxa la hurdi lahaa asoo farees oo kaamiro noo soo fadhiisan lahaa sababtoo iskaga qariba dareemi karnaa laakiin walaalkay waa ka wareejino dhammaan umad halgan tv waxaan leeyahay marka labaad ciid wanaagsan dhammaan walaalahay ehelkayga asxaabteyda adduunka meel kasto ay joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan waana idin salaamaa idinkan abay saqas iyo salaam ilaheedhe inta saciid mana taas waxa u salaama oo kal iyo laab hooyaday macaan hooyada macaan wallahi gabdhaha xitaa ugu badan oo مما كرسي كعب واستاجر ما يموجي شافعي دماء سمسمي عبد الناصر كل وسلاميه ما تسند معان بدن هذا وينك استومر يا شيخ خاص وسد دياريه لكن الله يا مرتي لازم على ايد الدبلان جارسيه واتورديا عادي بتيد معان بدن ما نقرح بدن كورجينا عيد وناكسن markana waxaan filayaa cabdinaasir inuu siin doono dhegeystaha xiga ee qadka inoogu jiraan daawada ee kusoo dhawow jamaad amale inay ku jirto barnaamijka taanidaha iyo salaamaha ay idinku tala gashay tv-ga halgan halow jamaad halow aan ka gudubno marka qadka kale waa hagaag jamaad waxaan filayaa inay cilada dhankaaga ka jirto waana ka xumahay markii labaad in maaragtay suuragal noqon weyda inaan wada hadallo hase yeeshee dhegeystaha xiga ayaan doonayaa markana inaan siiyo halow asalaamu calaykum waa hagaag waxaynu ku wada nasanaynaa kaalimaha suugaanta iyo weliba farsamo yaqaanka ayaan u deynayaa عيد عشيري ترس ونلفى عيد العافية عيد مبارك عيد ونحسن كل وهجاج عيد مانتا أو كلا عادي معها عدك لقينا كسيريان وعدكي اسم الله dhankana marka telefoonada aynu dib u eegno saafi cabdi ayaa qadka ku jirta asalaamu calaykum saafi waxaan filayaa dhanka qadadka telefoonada dadka naga soo gelaya inaynu dib ka sixi doono sidii jamaad oo kale ayaynan maqlayn gabadhana saafi mi maqlaysaa halow saafi codkaaga kor u qaada halow saafi mana maqashaad halow runtii aad baan ugu xumahay dhegeystayaasha naga soo gelaya qadadka telefoonada oo ciladii ay dhankooda ka jirtana dib ayaynu ka sixi doonaa waana ka raaligelinaynaa rumaantii inaynu waayaan balse kaalmihii suugaanta ayaynu ku wada nasanaynaa amahan dunida cid kastoo muslima waa cishooyinkay farxad iyo ciyaar cadmo ahay amahan dunida cid kastoo muslima waa cishooyinkay farxad iyo ciyaar cadmo ahay وعيدي عيد عيدا عشيري ترس هلو waxaan Hello, salaam calaykum. nashaad cabdi ayaan filayaa qadka ina ay ku jirto nashaaday salaamu calaykum Hello, salaamu calaykum walaal. kusoo dhawow barnaamijkii ciidii salaamaha yaa jeclaan lahayd inaad halkan ka salaanto adigoon ka ilaaweynin halka aad ku sugan tahay magaalada Holland ka soo wacay. Holland ka soo wacay. magaalada Holland ma iga soo wacaysaa mise waa markii la garo farxadda maanta ciid طبعا mararka qaar magacaaga jawaab wad garaweydaa hase yeeshee
walaashay waxaan kugu wareejinayaa cabdinaasir oo markaas barnaamijkayga la qayb qaadanaya daawada kusoo dhawaw barnaamijka taaniidaha iyo salaamaha ciidda aan ugu talagalnay tv-ga halgan tv adigoo magacaaga ku bilaabay halkan tv dhammaan waa salaamayaa Koro. Soomaaliyeed dhammaan iyo wanaagsan codkaaga kor mau qaadi kartaa walaal dhammaan halkan tv waa salaamayaa ku dhahay ummadda Soomaaliyeed dhammaan iid wanaagsan aan leeyahay ciid la mid ah yaa jeceshahay halkan inaad ka salanta waa ku maqalnaa halo waxaan filayaa walaashay inaad na maqlayso halo halo codkaagu go-ay walaal okay yaa jeceshahay halkan inaad ka salanta halo dhammaan yaa kale asxaabta dhammaan halkan tv dhammaantiin aan salaamaya okay sidee loogu ciiday dalka Holland qaasatan magaalada aad joogtay dadka Soomaalida ee ku nool maasha Allah si fiican loogu iiday farxad maasha Allah qofbasha ku dhamaatay okay yaa jeceshahay si qaas halkan salaan ugu gudbisid oo ku sheegay hooyaday aan ku dhahay qof kale qaas ku jira wiilashii iyo gabdhaha maanta Facebook wada jiraan mar hore loo hormariyay dib ma laha by telephone ya هذا ما صنتها سوري qadka xiga ayaan doonayaa markana bal inaynu siino hallo asalaamu calaykum hallo calaykum salaam may maqlaysaa aad baan ku maqalaa codkaaduna aad buu wanaagsan yahay walaal adoo ku bilaabaya magacaagii meeshaad joogto walaalo magacaygu waa yuusuf maxamuud cabdi waxaan joogaa dalka sweden gaar ahaan magaalo la yidhaahdo liishoobin walaalo liishoobin runtii waa magaalo oo dadka soomaalida ay ku badan yihiin runtii waxaan jeclaan lahaa walaalkayow cidda aad salaamayso iyo weliba adigoo noo hormarinaya sidii looga ciiday liishoobin maanta kulley wallahi si fiican baa looga ciiday marka dhammaan horta waxaan salaamayaa ummadda soomaalida iyo gaar ahaan idinka samsam cabdinaasir mayamooge iyo liibaan walaalaad baanu kaaga qaadnay waana filayaa iyaguna inay islaanto sidaas oo kale kaa qaadeen hase yeeshee yaa kale oo jeclaan lahayd inaad islaanto waxaan salaamayaa waalidkay oo aada iigu qaaliyaa hooyaday aabbahay walaaladay dhammaan oo iyaguna aanu ku wada ciidnay magaalada liishoobin de kabtanna waa maqlaya isla kabtamaye halkaa igu yara celi walaal kabtan يعني وحي كابتن سخاف الاسكو سلام يقولي ما مغري ما قرأت ومركاجي ها مركاجي ويا أنا جي وحا وحا يقولك أنت اسكاف ولا مركا وحسي خاصة وصاحب أنا أبيك سلسل وما سنتا وما سنتا هاي runtii waan kaaga mahad celinayaa salaanta dadka muslimiinta maanta xaq bay isugu leeyihiin aniga naftigeeda de iskaabulada naftigeeda waan salaamayaa si qaasa sidaas oo kale iskaabulada ka maqladii kii rabadaanta oo mayamooge iyo liibaan una haysteen markaa maya waa loo baahanya waad mahadsan tahay inaad idareensiisana waaman jeclaayo de barnaamijkiiniina wuu idin sugayaa wuu idiin soo socdaa kii ciidina wuu idiin soo socdaa waxaan ku leeyahay maalin wanaagsan oo qurux badan walaalkayo ayo maalin wanaagsan ciid mubaarak waan idin salaamaya dhammaantiin mahadsanid walaal aad mahadsan tahay dhanka kaalmaha suugaanta ayaynu markaan shaleecayna socodka laafiyaha noqontii gaaraha kama lama gudboonide xariir gooniyaa tahay kama lama gudboonide xariir gooniyaa tahay gaabka socodka laafiyaha noqontii gaaraha kama lama gudboonide حريق دنيا تاي ثم لما
farsamayaqaankaygu wuxuu soo xasuustay dhankii gabdhaha inuu maanta ammaanta u badiyo waa kaa sugayaa ammaanta dhankii wiilashana maxaa yeelay cabdinaasir bo waa maaragtay intaa kama sii badinayo laakiin waa kaa sugayaa dhankii raggana aad baad ugu mahadsan tahay farsamayaqaanka ayaan u mahad celinayaa jamaad deeman oo aad u jeclahay ayaa qadka inoo soo gashay jamaad ay kusoo dhawo barnaamijka Hello. Ha, Jamadi, kusoo dhawo barnaamijka. Assalaamu calaykum. Wacalaykum asalaam Jamadi. Cabdinaasir ayaan doonaya inaan kugu wareejiyo waxaan ku leeyahay ciid wanaagsan. Ciid wanaagsan bahnaashan dhammaantiin waxaan idin leenahay ciid wanaagsan anagoo isku duuban. Okay, waa mahadsan tahay Jamaad adoo ka faa'iidaysanaya fursadan qaaliga ee ku suusan TV-ga halgan TV yaa jeceshahay halkan inaad ka salaantid qaraabada ehelka iyo dhammaan waxaa halkan ka salaamayaa ummadda muslimiinta meel walbo ay joogaan. yaa kaloo jeceshahay waxaan salaamayaa hooyaday Sacdiye Cabdullaahi Aadan walaaladay dhammaan Fartuun Faadumo Maxamed iyo Liibaan dhammaan iyagoo ku sugan dalka dibadiisa iyo dalka Mareykanka iyo qaaradda Yurub. waxaan salaamayaa sidoo kale wiilkayga aqaadka u jeclaha Ismaaciil Khaliif Xuseen oo jooga magaalada Nairobi. Masha Allah. inuu ku maqlaan jeclaa. waxaan aad u salaamayaa asxaabtayda qaaliga ah dalka Norway gaar ahaan Albergan. waxaan salaamayaa asxaabta Oslo sidoo kaleeto waxaan salaamayaa saaxiibadayda qaaliga ah Sano فرحية سيدو كلاتي إفراح ياسمين علي سعودي علي دمان والسلامة يا إلمية ذا waxaan jeclahay inay ku daawadaan ama ku dhageysanayaan jamaad دمدم نسيقاسا يا وسلامة يا مية موغن عاد يا وسلامة ما شاء الله inuu ku maqlaan oo ku maqlaya okay قفاء شافعي بالسلامة يو اسمك كاسيتين بديا بالعكس أنا قاعدنا إلى شافعي سلامتي وهذا أنت كذا سلامتي مع دائما haddii la iga reebay iyadoo la igu bilaabay ba la mid tahaba وانا بالعكس منه قاعدنا laakiin ayna fahanteen asagaba waa iga reebay marka saas darteed anigana waxa waa meel salaamaya بريجا مريسان مركا عيارتا barnaamijku waa balaaraya barnaamijyo kala ka dambeyn doona marka tii hore haddii aan ka reebay kuwa dambe xasuusi dabcan baldhankayga aan kasoo galay markii aan lahaa ehelada iyo qaraabada iyo asxaabta waan wada salaamay ila cid walbaaba waxay leedahay saaxiibo gaara runtii haddii la eegana lamaba tirin karaba marka ma istiri naftigaagu nin durbaan tumay baa layidhi ilaaq dalbay marka dadna waad salaantay dadna waad ka tagtay marka eedaysanaa tahay laakiin dadka oo dhan baan wada salaamay tan khaaska ah haddii baa la magacaabayo laakiin taasi kuma jirto jamaadeemana waa noga oo dadka qaaskii ka mid tahay dabcan jalaafada alaa badan kulama sii wadaayo waxaa ila joogta gabar kale oo walaashay oo rabtay inay salaanta asxaabteeda iyadana mahadsanid walaal waad soo gudbin kartaa السلام عليكم عبد الناصر ورنكاga وعليكم السلام kusoo dhawo halgan TV barnaamijka taaniidaha islaamaha ciidan ugu talagalay adigoo magacaaga ku bilaabay meesha joogto magacaygu waa Ifraax Xuseen joogto dalka Norway waxaan salaamayaa waraysi dhammaan waadiyaasha barnaamijka halgan TV dalka maya muug sheekay dhammaantiin waxaad leeyahay ciid mubaarak mid la mid aan kusoo barnaamijda waxaan ka salaamayaa ehelada qaraabada asxaabta inta maqal muuqaalkayga garanaysa waxaan leeyahay ciid wanaagsan ummadda Soomaaliyeed dhammaantiin ciid mubaarak كل عام وانتم بخير ميل والبود جوكتان حق قاعد السلامية ولا شيء جوكتم مقالة مقدشو جارحان دقمة هذا عليها عيد مبارك ومنا عيد ونكسن دقمانتي جارحان سيدة صلوح السلامة يا أخوي ذي معان وجوكتين مقالة مقدشو لما معنا أصحابك إحنا ذكرنا أنت محل هاي كل عام وانتم بخير وما تمكن ذيك هذه يوم انتهي ما صنتهي يا كرو جعشة أنا سقاس وسلنت يا واحد قاعد بالله سلام المديران اوكي وما صنتها دعوة
adiga maganaala waa suntii waa hagaag dhegaystayaal daawadayaal idilkiinba meel walbo aad caalamka ka joogtaan halka aad nagala socotaan waa halgan TV dabcan maanta kaftanku wuu inoo furan yahay dabcan waxa aynu soomaneen 30 maalmood oo kaftanka iyo maaragtay sheekada aynu ka yara maqnayn isla markaana aynu ku jirnay xilli cibaado hase yeeshee waa loo baahan yahay inaynu waqtiyo wada qaadano runtii waxaan aad iyo aad runtii aan doonayay maanta oo dhan oo aanan salaamin oo si qaas u salaamaya nimayaho waxaa jira dad iyaguna daawada oo caalamka daafihiisa oo dhan jooga dadkaasi kommentiyo badan bay soo bixiyaan wayna taageersan yihiin intooda ugu badan aad bay noo jecel yihiin waqtigooda wayna la qaataan hase yeeshee ama telefoonka usoo geli waaya ama maxaan idhaahdaa waxbaa kasii noqda xitaa qaarkood qoraallo badan bay noo dabcan haa qoraallo badan bay soo sameeyaan anu maanta waxaan salaamayaa dadka commentiga soo sameeya intana sheergaraysa iyo sidoo kale inta aan awoodin inay nala soo xidhiidhaan qaar baa xishood ka reebi karaa qaar baa duruufuhu ka reebi karaan runtii waxaan aad u salaamayaa dadka soomaaliyeed ee na daawada oo maaragtay qalbiyadoodu ay inta badan nala shaqeeyaan waxaanad ka dareemi kartaa commentiga marka ay soo qorayaan iyo maaragtay sida ay ugu xidhan yihiin barnaamijyadeena sidoo kale saaxiibayaal waxaan ka madnayn in aad na soo wici kartaan ehelada qaraabada iyo asxaabtana aad salaami kartaan ha iska soo ilaawin qofkaad si gaara u salaami lahayd dabcan maanta su-aasha waa lagu weydiin doonaa weliba sidoo kale waxaa lagu weydiin doonaa meeshaad joogto iyo weliba sidii looga ciiday maalintan maanta ee barakaysan ee ummadda muslimiinta oo dhan ay markaasi wada ciidaysteen waxaan ka madnayn haddii aad awoodo inaad noo sheegi karto meesha in macnaha dadku kala ciideen iyo maalin qura in la wada ciiday aad baan runtii idiin salaamaynaa dhanka kaalimaha iyo suugaanta ayaa maaragtay fari ka qodnayn balse telefoonada oo inagu badan aawadeed dadka telefoonada ayaynu siinaynaa cabdinaasir oo barnaamijkii la daadihinayayna waan ku wareejinayaa dadka markaa qadka inoo soo galay okay waa mahadsan tahay daawada ay kusoo dhawaa barnaamijka salaamaha iyo tahniidaha aan ugu talagalnay ciidda adigoo ku bilaabay magacaaga ee meesha aad joogtid hallo hallo hallow dhegayste daawade hallow qofkaas u saxda waxaa laga yaabaa dadku inay soo wacaan isla markiina markii inagu caadisaan laakiin dhib ma lahaa qofka dib ayaynu iska heli doonaa kolley markuu soo diyaar garooba ayaynu helaynaa dhanka kalimaha sugaanta miyaynu eegi karnaa dhanka markana bal aan farsamo yaqaanka iyo dhankiisa fadlan waxaan idinka codsanaynaa inaad sheer garaysaan oo aad subscribe garaysaan barnaamijku waa barnaamijkiinii waa barnaamijkii loogu talagalay farxadda ciidda oo markaasi salaamaha aad ku salaamaysa eheladaada qaraabadaada iyo asxaabtaada meel kastood caalamka joogto hallo hallo xamsa kusoo dhawow barnaamijka taaniidaha iyo salaamaha halgan TV ciidda dhammaan dadka muslimiinta dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak waa idin wada salaamo dhammaantiin waan kaa qaadnay mid lamid ayaan hawada kuusoo marinaynaa aada umahadsantihiin thank you yaa jeceshahay adigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan qaaliga ay ku siisay halgan TV inaan salaamo hooyaday aabahay faamilkayga dadkayga oo dhan asxaabtayda oo dhan friendskayga dhammaan dadka muslimiinta dhan ciid mubaarak aa idin leeyahay mid lamid ah yaa jeceshahay si qaas inaa halkan ugu salaanta asxaabtayda dhan iyo faamilka qof kaloo qaas ma jiro okay sidee loogu ciiday magaalada aad joogtid ama waddanka aad ku nooshahay walahi magaalada aan joogo waa magaalo iska yar okay oo waddankee iga wada ciideen alxamdulilah si wanaagsan aan wada ciidnay si wanaagsan wax khilaaf iyo waxaas ma jirin dadka soomaalida ee ku nool aad iyo aad ay u ciideen hallo hallo waa hagaag intaasi aynu uga gudubno runtii waxaan doonaynaa dhegeystaha xiga inaan siino waqtigoon noo saamixinin awgeed kalimaha sugaantuna waa inagu soo maqan yihiine bal midka uu farsamayaqaanku ina siiyo ayaynu eegin
xajintiigu mudnay adayga xarayo adanku xurmaynaya xabiibi naftayday naftayday naftaydiyey xajintiigu mudnay adayga xarayo adanku xurmaynaya رجل الروح الحفيظ حيقود كما قلتان حسكودنا كما هيان عبد الناصر وريتاس بربا رجل دمر كان حفظين أنا حسكود الشكاوين بربا والله ما شاء الله وهيس جعل كلامتاني وأنا اوكي daawada ayaa ku jiro dhankii daawadayaasha bal aynu u noqono runtii anigu heesta aad baan u jeclahay wayna i saamaysaa haddana hase yeeshee dhegeystahan balan ku dhiiba adiga dhinacaaga waa hinda axmed khaliif okay daawada hinda codkaaga kor wax yar u qaad halo daawada السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته kusoo dhawow barnaamijka taaniyadaha iyo salaamaha ciidda ugu talagashay tv-ga halkan tv adigoo magacaaga ku bilaabaya meesha aad joogtid anigoo hinda axmed baa la yidhahda waxaana kasoo hadlaya hargeysa dhamaan aad baan niamaya adiga inta daadihinta barnaamijka mid lamid ayaan kuu soo marnayna hawada yaa jeceshahay adoo ka faa'iidaysanaya fursadda qaaliga ay ku siisay tv-ga halgan waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan farxad ku ciidaan leeyahay gaar ahaan waxaan salaamayaa asxaabteeda faamiligayga meel kasta dunida kaga nool yihiin aad baan u salaamayaa inta magacayga taqaanaa aniga waxaa la yidhaha hinda axmed khaliif dhammaan inta magacayga garanaysa aad baan usoo salaamayaa ehelkayga iyo asxaabteedaba maasha allah yaa jecesha okay waa mahadsantahay yaa jeceshahay si qaas inaa halkan ugu salaantid kala way jiraan dadkaasa laakiin halkan kama magacaabayo iyagana aad baan u salamayaa mahadsanid hinda intaanad ka bixin ka hor ayaan doonayay sida looga ciiday magaalada hargeysa maanta maasha allah aad si weyn baa looga ciiday yar yar iyo waaweynba waa la dareeray inkastana suuqa aanan u bixin guriga dhex fadhiya laakiin alxamdulilah saan arkayay aad baa loo ciiday saaka markan salaadi sanadka sanadka barwaaqaadaha lagu gaarsiiye aad baan kuu salaamaya walaadiga shaafici iyo inta kale meesha fadhiya moogana waan salaamayaa dhammaan adigana waan ku salaamaya walaal macaan mahadsanid hinda aad baad u mahadsan tahay barnaamijka caawa nasiib u helay markasta waan soo qaraaci jir laakiin waan mahadsantahay shaafici waan u mahad celinaya maadaama caawa soo qaraacay in badan baan jeclaa inaan barnaamijka ka qayb qaato laakiin waa ii suurtageli lahayd inaan soo alxamdulilah aad baad mahadsantahay walaalkay shaafici aad baan kaaga mahad celinaya oo sidaa darteeda u diidamaya mooga si qaas inaa u salaatay mooga aad baan kuu salaamaya walaalkay aad baan kuu salaamaya laakiin caawa shaafici bay xasuustay wuxuu igu yidhi adiga waan kusoo wacayaa buu igu yidhi soo waca laakiin jaanis baanan u helin made feebarka skypeka meel kasta waa naga soo wici jir laakiin dadku dabadun bay ishasteen laakiin caawa shaafici fursad ay siiyeen mahad celinaya mooga aad kuu salaamaya walaa adigana hinda iska xasuusno wuxuu jecel yahay in laga bilaabo isaga salaanta waxa weeyaan maaragtay ninka mooga la yidhaahdo waa nooc kale ma fahamtid mooga adigaa salaada ugu horeysiinaya intaa ka horeeya maadaama sidaa tahay aad aad umasantahay mudina marweyn maanta waa maalin ciida zamzam waxay tiraahdaa laga qorin dabcan anigu raygiga ka hadlay waayo waxaan ogahay hadda wax salaamaya inaan mooga ka bilaabi lahaa mogtahay marka aad baanu ku salaaminaa saaxiib qaaliya hinda
runtii barnaamijkii asxaabay meel walbood caalamka kala socoteen barnaamijkeenii maanta maalinimada ciidaan idinkugu talagalay waxaa si wada jira idinkugu daadihinayay anigoo cabdinaasir maxamuud xaaji iyo samsam sheekh axmed waxaad iga wadantaa norway sida looga ciiday si ballaaran ma looga ciiday mise qoladii shalay ciidaad ka mid ahayd aniga mise maanta nala ciideen annaga waa hagaag dhegaystayaasha qiimaha iyo qadarinta inaga mudno meel kastood caalamka ka joogtaan halka aad markaas inaga daawanayseen waxay ahayd halgan TV dhanka farsamada waxaa barnaamijka inoo fadhiyey shaafici muxiidiin iyo weliba may mooge intaasi ayaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii oo aan fari ka qodnayn qaybaha dambena shaafici iyo maaragtay qofkii markaa la daadihin lahaa baa u diyaara insha allah tan intayn barnaamijkan oo kale aad dib ugu kulmi doono waxaanu doonaynaa inaan idinkaga tagno heesta ciidda iyo maanta markaasi waxna filayaa xasan daahir andhaade xasan diiriye faarax inuu heestan ku luuqeynaya allah u naxariiste maxamed suleymaan sorry tan intayn barnaamijkan oo kale aad ugu kulmi doono waxaan idin leenahay ciid wanaagsan dhammaantiin anu adii waxaa lagu xira anagu dhan alla maanta yamaada si wanaagsan u ciida way ahaatay maanta si wanaagsan u ciida way ahaatay maanta si